Madaxweyne Qoorqoor ayaa liiskan ku shaaciyay musharaxiinta 6 kursi oo ka mid ah 8 kursi oo Galmudug ay ku leedahay aqalka sare, halka dib loo dhigay 2 kursi oo weli go'aan aan laga gaarin. Liiska la shaaciyay waxaa ka maqan siyaasiyiin saameyn ku lahaa baarlamaankii tobnaad ee dalka. Dhinaca kale, Durbaba waxaa maanta oo Arbacaha la shaaciyay waqtiga la qabanayo tartanka kuraastaasi. Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashada aqalka sare ee xubnaha Galmudug ku matalaya aqalka sare. Jadwalka guddiga ay shaaciyeen ayaa lagu sheegay in maanta oo Arbaca ay bilaabanayso diiwaangelinta musharaxiinta iyo sidoo kale bixinta khidmadda musharaxiinta. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in berri oo Khamiis ah ay dhacayso doorashada 6 kursi oo ka mid ah 8 kursi aqalka sare maamulka Galmudug uu ku leeyahay dowladda federaalk Soomaaliya. Shaacinta jadwalka ayaa timid kadib markii madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu soo saaray liiska 12 musharax oo u tartamaya 6 kursi oo ka mid ah 8 kursi oo Galmudug ay ku leedahay aqalka sare. Liiska raajo qabashada ayaa maanta oo Arbacaha bilaabanaya iyadoo berri oo Khamiisna musharaxiinta hadal jeedinta ay bilaabi doonaan, waxayna ka dhigan tahay in Galmudug si toos ah u guda gashay doorashada aqalka sare. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor weli kuma uusan dhiiran in kursiga uu ku fadhiyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid uu ku soo daro liiska. Arrintan ayaa weli dhinacaane u dhicin oo weli waxa uu wadaa qancin dhinacyada kursiga u tartamaysa. Xaaf oo ah madaxweynihii hore maamulka Galmudug oo Cabdi Qaybdiid ay isku hayb yihiin ayaa damac waxa uu uga jiraa inuu helo kursiga Senator Qaybdiid oo booska uu baneeyo. Dhowr jeer ayuu hadallada jawaabta jeediyay Xaaf, waxaana ugu dambeeyay inuu yiri qiyaamaha ayaa dhacaya haddii kursiga senatarka aqalka sare aan waayo. Laakiin Qaybdiid oo kursiga ku fadhiya dhagaha ayuu ka fureystay hadallada Xaaf, waana sababta keentay in Xaaf walwal badan uu muujinayo helista kursiga uu ku fadhiyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid bishii u dambeeyay waxa uu ku jiraa furimaha hore ee dagaalka Galmudug ay kula jirto Al-Shabaab, taasina waxay sahlaysaa in kursigiisa aan la damcin. Hadda kursiga aqalka sare ee uu ku fadhiyo waxaa sidoo kale damac ka qaba Maxamed Kudun Ximaa, laakiin tartanka ugu adag ayaa dhexmari doona Xaaf iyo sidoo kale Cabdi Qaybdiid. Go'aan qaadashada kursigaas ayaa soo afjari karta hadalka baraha bulshada la isla dhex marayo iyo sidoo kale hanjabaadaha Xaaf warbaahinta uu marinayo. Sidaa iyo si lamid ah waxaa jira kuraas weli go'aan laga gaarin. Kursiga Abshir Bukhari ee aqalka sare ayaa isna la go'aamin weli, inkastoo tartan adag kursigaas uu geli doono, iyadoo siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil magac weyn leh ay kursigaas ku tartami doonaan isla markaana damac uu kaga jiro. Laakiin Qoorqoor ayaa laga sugayaa in 2 kursi ee ka harsan Galmudug uu dhowaan soo bandhigo.